السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن دمان صاحبada qiimaha badan ee ku xiran channelka Samnakasta Official. Fadlan haddii aad tahay markii hore soo booqato channelka subscribe noo saar kambalelkana furo si markasta ay kuu soo gaaraan muuqaalada xisaab badan ee halkan soo gelino. Haddii aad horan u joogtana muuqaalka noo like garay sidoo kalena sii share garay si uu muuqaalku ku gaaro saaxiib badan oo ku maasan tahay. barnaamijkan maanta inta ugu badan waxa diiradda ku saarana saddexda xidig dhankaasi oo koonfur Hindiya gaar ahaan fanka Tamil Nadu ama Kollywood oo saameynta badan kuwaas oo kala sifa kartikiyan sidoo kale Karthi iyo sidoo kale Dhanush oo sanadahan dambe tartan weyn oo ka dhaxaysay marka ku noqon lahayd superstar ugu weyn marka la fiiriyo fanka Kollywoodka waana saddexda ugu cad marka la fiiriyo xidigaha kale marka saameynta kula marka la fiiriyo fanka Tamil Nadu waana saddex superstar ee labadii sano ugu dambeysay marka la fiiriyo filimada ugu badan imaada sidoo kale ka mid yahay filimada ugu guuleystay marka la imaaday labadii sano ama saddexdii sano ugu dambeysay haddii ay ku hormaro superstarka lagu magacaabo Dhanush oo marka la fiiriyo last 2 years marka uu sameynayay hadallayna inaba caadi ahayn oo marka ka mid yahay filimadiisa classic marka uu guuleysteen sidoo kale marka filimkiisa Hollywoodka aad loogu amaana bandhig heerka sare oo ka sameeyay wuxuu ka mid ahaa xidigii marka ugu saameynta badan sanadkii ugu dambeeyay waliba sanadkii 2020 oo la imaaday filmo kala duwan marka uu noqday blockbuster halka sanadka 2020 marka film uu la soo wada Akshay Kumar marka dhankaasi OTT loo waciyay bar sanadka 2020 iyo horaanta sanadka 2023 xidigan wuxuu noqday xidiga marka ugu hadalaynta badan marka la joogo koonfur Hindiya gaar ahaan waliba fanka loo yaqaan Tamil Nadu ama Kollywood. haddii aan fiirino filimadiisa ugu dambeeyay filimkiisa lagu magacaabo Thirty Tablam kaasoo la sameeyay xidigta lagu magacaabo Nithya Menon sidoo kale Prakash Raj filimka door muuqaal martiya marka kula adag oo abis marka ku matalay Dhanush filimkaas wuxuu noqday all time blockbuster ayuu noqday ganacsigiisana filimkan 110 karo filimka ka tilaabay filimkaasna wuxuu noqday filimkii Dhanush ugu horeeyay marka 100 karo u gaaray waxaana ugu sii xigay filimka lagu magacaabo Nana Forfen filimkaas isku dhaceen filimkii weynaa ee Ponniyin Selvan ayuu filimkaas isku dhaceen haddii markaas isku dhici lahayn filimkaas wuxuu noqon lahaa filim marka blockbuster balse filimka wuxuu noqday filim marka hit dhameystiran oo macaash fara badan filimkaas laga helay sidoo kale 2020 actorkan wuxuu kusoo dhameystay 2 filim marka uu guuleystay oo marka darajo lixaad la gaaray 2023 wuxuu ku bilowday filimkii marka ahaa Fathi ama Seer loogu yeeray dhankaasi Telugu filimkaas wuxuu noqday blockbuster kale oo marka filimkiisa 200 karo u gaara filimkaasna ganacsigiisa hadda wuxuu gaaray ku dhawaad 130 karo actorkana wuxuu gaaray darajooyinka marka actoraasha marka keena 100 karo oo marka howlo ugu jiraan Ajit Kumar iyo sidoo kale Rajinikanth iyo sidoo kale Thalapathy Vijay ayaa marka hore ugu jiray kaalmaha filimada 100 karo marka ka tilaabi jireen haddana Dhanush ayaa marka ku soo biiray sanadka 2023 filimka loo guulay marka ku furfurtay waxaana uu noqday filimka blockbuster weyn waliba marka la fiiriyo dhulweynaha Telugu filimka saar aad ayaa loogu soo dhaweeyay xitaa wuxuu ka ganacsi batay filimka markii dhulkii laga lahaa Tamil Nadu ganacsigiisana wuxuu ku dhawaad 10 karo inta ugu badan ganacsigiisa wuxuu ka soo xareeyay marka la fiiriyo gudaha Telugu saaxiibada qiimaha badan hadda waxa ku xijirnaa actorka marka lagu magacaabo Karthi oo marka actorka loo saameyn badan actorkan wuxuu dhashay xidig la wajahal yahay Suuriya oo marka actorkan la dhashay sidoo kale hadii aan soo qaadano sanadkii tagay 2020 xidigan waxa uu soo baxay filimkiisa lagu magacaabo Ponniyin Selvan Part 1 filimkaas la wadeen hogaamiyaal fara badan marka ka mid Jayam Rafi Jian Fikram sidoo kale gabadh xidigta lagu magacaabo Aishwarya Bachchan Trisha Subhita Dulbila filimkan door weyn oo ka qaatay Karthi oo filimkan inta badan marka ka soo muuqanayay inta ugu badan filimka sheekadiisa ayaa kala waday saaxiibada qiimaha badan filimka ganacsigiisa wuxuu gaaray ku dhawaad 430 karo meelahaas ayuu filimka gaaray wuxuu noqday all time blockbuster sidoo kale waxa uu xigay filimkiisa Sardar oo marka labada door ku matalay bishii October soo baxay filimkaas oo filim classic oo marka taxana sir doona haddana la filayo qayb laga sameeyo Sardar 2 oo sanadka 2004 dhamaadkiisa marka shaqadiisa la bilaabi doono filimkaasna wuxuu noqday blockbuster kala weyn sidoo kale actorkana sanadka 2020 wuxuu kusoo dhameystay guul oo marka labada filim Ponniyin Selvan Part 1 sidoo kale filimkiisa Sardar 2023 marka la soo galo hadda waxa uu soo 30 Abriil ama toddobaadka dambe waxa uu soo bixi doona filimkiisa Ponniyin Selvan Part 2 oo marka filimkan uu ku leeyahay door adag sidoo kale waxa uu xigi doona filimkiisa lagu magacaabo Japan oo filim marka kale xiiso badan marka door dhameystiran marka ku leeyahay action sidoo kale thriller iyo comedy marka isku jira sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxa ku xijin doona actorka marka lagu magacaabo Sifa Karthikeyan oo kamid ah actorada marka sanadada ugu dambeysay marka garaafkooda marka kor u soo kacayay haddii aan ku bilowno marka filimadiisa ugu dambeeyay waxa kamid ah filimkiisa lagu magacaabo Doctor kaasoo 2020 daqiiqadiisa marka soo baxay oo noqday blockbuster weyn 2020 wuxuu la imaaday filimkiisa weynaa ee marka Dawn ganacsigiisana marka 90 karo ilaa 80 karo marka gaaray filimkaasna wuxuu noqday filim kale oo blockbuster balse filimkiisa October marka isku dhaceen filimkiisa Sardar hogaaminaya Karthi filimkaas wuxuu noqday filim marka ka fashilmay ama flop
dhamaadka sanadkii soo baxay dhamaadkii bishii October wuxuu noqday filim markaa follow ah lagu magacaabo jiray Prince sidoo kale sanadka 2023 waxa uu diyaarsan filimkii science fiction ama khiyaaliga Ireland barnaamijkan maanta wuxuu ku saabsanaa saddex filim markaa sanadka 2023 markaa soo wadaan saddex xidig ayaa waxa la shaaca laga qaaday markaa saddex filim la filayo inay markaa isku dhacaan feestada markaa loo yaqaan Diwali sanadka 2023 waana saddex filim kala Ireland Japan iyo sidoo kale Captain Miller oo filim markaa noqon doona Pan India movie waxa la filayaa saddex filim markaa isku dhici doonaan oo markaa Big Clash sanadka 2023 isku dhacdo fanka Tamil Nadu ama saddex star markaa garaafkooda markaa kor u kacayo inay markaa saddex filim classic ah markaa soo wadaan markaa isku dhici doonaan halka Ireland oo markaa filim markaa si heer caalami loo sameeyay oo markaa arrimaha science fiction ama khiyaali markaa ku saabsan Sifa Karthikeyan wax kala soo muuqan doona si shaaca laga qaaday xigta markaa lagu magacaabo Rockwell Britsin halka sidoo kale Sharada Kalker iyo sidoo kale filimka halka muusikada qoraacan AR Rahman filimka muusikada qoraaci doona waana director dhanka muusikada looga dambeeyay sidoo kale Rafish Kumar filimkan agaasimi doona directorka halka filimka markaa lagu magacaabo Captain Miller oo hogaamiye ka yahay Danush oo markaa tashakuwaad ka tahay xigta markaa lagu magacaabo Priyanka Arul Mohan halka uu directorka yahay ninka lagu magacaabo Arun Mathwasran filimka directorka ama agaasimi doona sidoo kale filimkan xisaab badan waxa la filayaa in markaa isku dhici doona saddex filim ee Japan sidoo kale Ireland sidoo kale saaxiibada qiimaha badan soo qaadan kana filimka markaa lagu magacaabo Japan waxa tashakuwaad ka noqon doonta Kart aan ilaahay anu Emmanuel halka Kart markaa uu qaadan doono doorka agaasinka directorna waxa ka noqon doona Raju Mugan filimkan waxa la filayaa Diwali 2023 ama Dussehra 2023 markaa saddexda filim la daawan doono saaxiibada qiimaha badan barnaamijkan intaas ay ku soo gabagabeynayna oo aan kaga hadlaynay saddex xidig markaa uu sareysa marka la fiiriyo fanka koonfurta iyo marka laga soo tago superstar ugu weyn Rajinikanth Thalapathy sidoo kale Thala Ajit Kumar kuwaas oo kale Karthi iyo sidoo kale Sifa Karthikeyan sidoo kale Danush ayaa maanta muuqaalkeen kaga hadlaynay wixii ka soo korana filimada xisaab badan xilliga la daawan doonana waxaan ku soo gudbin doonaa barnaamijyadeena xiga sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxa soo qaadanayna filimka marka lagu magacaabo Suuriya hogaamiye ka Suuriya kaas oo lagu magacaabo jiray Suuriya 42 hadda si rasmi ah filimka wax loogu bixiyay magac kaas oo filimka loo bixiyay Kangufa waa filimkan magaca dhameystiran marka filimkan tiyaatar uu soo bixi doona ana filimka loo xisaab badan oo Suuriya marka ku soo laabanay sanadka cusub ee 2024 waxaana shaaca laga qaaday horaanta sanadka 2024 waxa uu baantay saddex bilood ugu horeysa filimkan inuu marka tiyaatar la saari doono waana filimka loo xisaab badan Suuriya oo la imaan doono sidoo kale filimka wuxuu noqon doonaa Pan India movie ku dhawaad 10 luqadood ayaa filimka lagu daawan doonaa lix ka mid ah luqadahaas oo laga hadlay kaas Hindiya kuwaas oo kala Hindi Telugu Malayalam Tamil sidoo kale Canada iyo sidoo kale wax soo raacday luqadda lixaad oo Bengali sidoo kale luqadda toddobaad waa luqadda Ingiriisiga ayaa filimka lagu daawan doonaa saddex luqadood kala haray wax noqon doona luqado kale marka soo raacdo oo shaaca laga qaadi doona filimka lagu daawan doono kuwaas oo u badan tahay luqadda af Carabi sidoo kale luqado kale fara badan in filimka lagu daawan doono wuxuu noqon doonaa Suuriya filimka isugu horeeyay marka India ku qabsan doono waa filim laga hadlayo boqortooyo hore dhankaas Tamil Nadu markaa ka jiray sidoo kale filimkan waxa agaasimi doona directorka lagu magacaabo Sifa oo director laga dambeeyay marka la fiiriyo filim sameynta sidoo kale heer sare oo filmaanta uu sameeyo waxa lagu xasuustaa 2019 filimkii blockbuster-ka Hafiz Wasam oo uu sameeyay Thala Ajit Kumar sidoo kale Nayantara kaas oo markaa tayis aad looga arkay actorka marka la fiiriyo directorka sidoo kale sheekada wanaagsan oo marka inta badan directorka uu doorto iyo sidoo kale filimka Fedalam oo Ajit Kumar inta badan filimadiisa ayuu markaa directorkan uu sameeyaa haddana directorka Sifa sidoo kale Suuriya ayaa markaa midoobay filimka loo xisaab badan Pan India movie noqon doona marka sanadka cusub 2024 la imaan doonaan filimkan sida wadana shaqadiisa soo bilaabatay horaantii sanadkii 2022 taas oo ka dhigantay filimka shaqadiisa ku dhawaad hal sano bar marka filimkan shaqadiisa socon doonto taas oo ka dhigantay filimkan aaladda VFX wax badan in marka lagu tayan doono si marka Suuriya filim tayalo sidoo kale sheeko wanaagsan oo marka saxada la imaan doono oo noqon doona filimka loo Pan India movie actorka la imaan doono hore actorkan waxa lagu amaanay bandhiga heerka sare oo filimada ka sameeyo kuwaas oo kala filimada Jayfim sidoo kale Sarur Batru oo ka actorkan marka ku qaatay bilada fara badan ka mid Filmfare Award sidoo kale National Award saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa ka soo kordhanay sidoo kale xilliga rasmiga filimka la daawan doona barnaamijyadan kale ay marka ku soo gubin doona ugu dambeyntiina waxa la fiirin doona filimada tiyaatarada saaran kuwaas ka mid Daasara Rafanasura Bola sidoo kale Gumra ayaa muuqaalkan ugu dambeeyay ku soo gabagabeynayna haddii aan ku bilowno filimka marka lagu magacaabo Rafanasura oo hogaamiye ka Rafiteja sidoo kale filimkan waxa ku jira gabadha lagu magacaabo Farihiya Abdullah sidoo kale Mega Cash halka actorka lagu magacaabo Sujaata dhankaas Telugu ka soo jeedana filimkan oo la awood badan ku matalayo sidoo kale filimka fariintiis aad ayaa marka loo adkeeyay oo marka fariintan waxa ku xadeyntahay marka daawan dadka marka daba
18 sano markaa ka weyn. taas ayaa filimkan ceshay markaa ganacsi fiican ama ganacsi balaana filimkan oo sameeyo. waxay ahayd filimkan shahada markaa loo yaqaan US certificate filimka in la siiyo si markaa filimkan qoysaska xitaa markaa filimkan u daawadaan. sidoo kale filimkan waxaa loo diiday markaa la daawado filimkan dilalka iyo isdilka ayaa filimkan ku badan. waa fariin kale oo actorkan markaa ula imaado tiyaatarada maadaama actorkan filimkan filimada action iyo sidoo kale comedy markaa kusoo geli jiray shaashadaha, balse hadda weji kale oo ka duwan markaa lagu aqoon jiray markaa actorkan shaashadaha la soo galay. waxaan fiirin doonaa filimkan 9 maalmood filimkan ganacsiga ee halka uu marayo filimka lagu magacaabo Rafanasura. hadda filimkan wuxuu marayaa ku dhawaad 22 karoor iyadoo qolyaha laga qaybay filimkan ka heleen ku dhawaad 12 karoor iyagoo markii hore ku iibsaday ku dhawaad 22 karoor. hadda waxa uga dhiman ku dhawaad 10 karoor kaliya si uu filimkan hid dhameystiran ku noqon lahaa. filimkan way ku adag tahay maadaama toddobaadadan food ugu saaysa filmo kala duwan markaa soo bixi doonaan. 21 wax soo bixi doona filimka lagu magacaabo Firubaksha hogaamiye Kaysed Anamteja. 28 kan wax soo bixi doona filimka lagu magacaabo Ajanti iyo sidoo kale filimka lagu magacaabo Bunya Silfan Part 2 oo after lagu daawan doono. waxaa laga yaabaa filimkan ay markaa tiyaataradiisa aad loo yareeyo oo tiyaatara markaa ku filan filimkan la siiyo. waxaa laga yaabaa filimkan noqdo filim kale flop oo sanadka 2003 actor markaa ku furfurtay. sidoo kale waxaa ku xiga filimka lagu magacaabo Daasara oo ku dhawaad 17 cisho filimkan masraxa saaran. naanina wuxuu noqday filim kale oo markaa guul kale uu ku gaaray oo lixaad leh maadaama filimka hadda ganacsigiisu marayo ku dhawaad 112.55 karoor oo markaa ku dhawaad 113 karoor ay filimkan maraya. halka qolyaha laga qaybay filimkan ka helay ku dhawaad 62 karoor iyagoo markii hore ku iibsaday ku dhawaad 50 karoor. hadda faa'iido waxay ka heleen ku dhawaad 12 karoor profit ay filimkan ka helay, taasoo ka dhigan tahay filimkan inuu noqdo filim markaa super hit ah oo markaa naani markaa sanadka 2023 ku bilowday. sidoo kale xidigan wuxuu shaaca ka qaaday filimkiisa xiga ee lagu magacaabo Naani Sodon oo markaa filimkan weli magac loo bixin. actorkan wuxuu ka faa'iideysanayaa hadalaynta filimkiisa lagu magacaabo Daasara. hadda wax shaaca laga qaaday filimkan 21 December sanadka 2023 in la daawan doono. wuxuu rabaa sanadka 2023 in markaa 2 filim la imaado, sanadka xigana markaa 2 filim kale markaa xidigan ula imaado. sidoo kale waxaa ku xiga filimka lagu magacaabo Pola oo hogaamiye Jay Devkan Tabu iyo sidoo kale xidigta lagu magacaabo Amala Paul ee filimka kaalinaad ka qaadatay. sidoo kale Abhishek Bachchan ayaa filimkan ka soo muuqday. sidoo kale filimkan hadda ilaa ganacsigiisa wuxuu marayaa ku dhawaad 80 karoor lacagta markaa loo yaqaan netka, halka lacagta garooska filimkan uu marayo ku dhawaad 90 karoor. filimkan haddii markaa 100 karoor gaar ah laga yaabo filimkan inuu noqdo filim markaa average oo markaa lacagtiisa ku dhawaad maadaama filimkan 110 karoor lagu kharashkay lacagtiisa 10 karoor markaa ka dhimnaan doonto. sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimkan Gumraa oo hogaamiye xidiga lagu magacaabo Didier Roy Kapoor sidoo kale Marwan Thakur filimkan kaalinaad ka qaadatay. wuxuu noqday filim kale oo disaster oo markaa shirkadda caanka T-Series markaa la imaatay. shirkaddan dhawaanaha waxaa ku socda hoos u dhac inaba caadi ahayn maadaama filim walba tiyaatarada loo saaray noqonaya filmo markaa underperform ama filmo disaster ah. haddana filimkan Gumraa ayaa markaa shirkaddan ugu soo xigtay. hore waxa uu Shehzada markaa la imaadeen wuxuu noqday filim kale oo burburay. haddana filimka Gumraa ayaa markaa shirkaddan la imaatay wuxuu noqday filim kale oo disaster ah. saaxiibada qiimaha badan intaas ayaa kusoo gabagabeynaa filimada classic filimada masraxa saaran ee markaa ka mid Daasara, Rafanasura, Pola iyo sidoo kale Gumraa ay kusoo qaadanayna barnaamijkeena. wixii ka soo kordhan waxaan kusoo gudbin doonaa muuqaaladan xiga. fadlan haddii aad ka heshaan muuqaalka noo like garay sidoo kalena sii share garay si uu muuqaalka ku gaaro saaxiibo badan. waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.